بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، waxaynu ku guda jirnay duruusan aan uga hadlayno ramadaanka insha allahu tacaala. darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay aadaabta la iska rabo qofka sooman, aadaabta laga rabo iyo qaabka loo sooma insha allahu tacaala. waxaynu soo ogaanay bisha ramadaan inay tahay waajib inuu la soomo hadduu ilaah yiraahdo insha allahu tacaala. qofka inuu muqiim yahay ayaa shardi ah. horta muslim uu yahay, baaliq uu yahay, caaqil uu yahay, haddana muqiim uu yahay waa qofka waajib uu ku noqonay markaas inuu soomo. qofka musaafirka ayaa ka baxaa, musaafarka iyo qofka xanuunsan ayay dib ay kasoo qalaynaan insha allahu tacaala. sidoo kale soonka waxaa loo baahan yahay markuu soo galo inaan maalin amba laba maalin laga hordhicin oo shacbaan dhexdeedii inaan la soomin insha allahu tacaala, ama aragti la-aan in la soomo ayaa rasuulka calayhi salatu wasalaam ayuu diiday. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: suumuu liru'yati wa afdiru liru'yati fa in gubiya calaykum fa akmilu ciddata shacbaana 30. waxaad ku soontaan aragti ku sooma oo bisha aragtideeda ku sooma, aragtina ku afura. aragtidan tan ay tahay dadka qaar si xun bay u fasirtaan, marka ani arka keliyan sooma dadka dhahay ma ahan. aragtida marka laga hadlayo waxay tahay qof muslima walaalkaaga hadduu arko inaad ku soonto oo soon ramadaan koowa uu ku yiraahdo. haddii wadamada carabti oo kale laga arka ama wadamada islaamka laga arkana sidoo kale inaad ku soonto waa ilaa Soomaaliya laga arkaa, ama Soomaaliya kama aan arkin kuma sooma inaad tirahdo lama rabo. afdirka sidoo kale afurkan waa la mid in aragti lagu afuro. haddii wadamada islaamka laga arko ayadana sidoo kale waa lagu afuri karaa. sidoo kale haddii oo qof walaalkaaga ama baadi kaaga yimaadan oo ku soo sheegan waad afuri kartaa. waayo nabi maxamed alayhi salaam hadda ka hor waxaa u yimid nin reer baadi ah, markaasuu wuxuu yiri bishii baan arkay. markaasuu wuxuu ku yiri ma qiraysaa inaan aniga rasuul ilaahay aan ahay? waan qirayaa uu yiri. marka insha allahu tacaala marka sidii baa ninkii lagu aaminay insha allahu tacaala. rasuulka calayhi salaam marka wuxuu leeyahay aragti ku sooma oo aragti ku afura. haddii laydinka daboolo bisha oo ay noqoto in macnaha saxaab iyo waxyaabo noocaas oo kale ay noqdaan, haddii shacbaan ay tahay in bisha 30 la kaamilo insha allahu tacaala. 30 in laga dhigo maalin 30aad in meesha lagu dhamaystiro insha allahu tacaala. 31aad in la soomo sida hadeertan oo sanadkan hadda ay dhacdo kale 1442 hadda aan ku jirno. sidoo kale riwaayad kale oo imaam muslim raximahullahu tacaala uu leeyahay wuxuu leeyahay: haddii laydinka qariyo fasuumuu 30 yowman, waxaad soomaysaan 30 maalin ayaa soomaysaan insha allahu tacaala. 30 maalmood in la kaamilaan roon haddii bisha la waayo insha allahu tacaala. marka taas waxaan ka ogaanay bisha in aragti lagu soomayo, aragtina lagu afura insha allahu tacaala. waxyaabaha kalindarada iyo waxyaabaha taariikhdan ayadana sidoo kale waa mas'alo istishhaadi ah. taasna waxaway waa culumada xaggooda jirta insha allah. sidoo kale in aan lagala hordhicin ramadaanka soon ayadana waxaa u daliil ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: laa yataqadamana axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ilaa an yakuuna rajulun kaana yasuumuhu sawmahu falyasum dalika alyowm. qofkiina oo axadkiina oo muslimka ayuusan kala hormarin soon ramadaan maalin ama laba maalin. oo for example waxaa ka dhiman ramadaanka hal maalin ama laba maalin inaad soontaa la diidaya, aad kasii hore dhacdo. ilaa an yakuuna rajulun, ilaa qof ayaa laga soo rajulin. hadda waa sida qaalibka laga soo qaatay, xataa dumarka way ku jiraan haddii ay soon sunno ay soomi jirtay sida ramadaanka oo kale haddii ugu soo aado ramadaanka oo kale talaado ama arbaco oo kale hadduu yahay, hadday isniin soomi jirtay waad iska soomaysaa insha allahu tacaala. qamiis qofkii soomi jira ama isniin iyo qamiis labadaba dada sooma. haddii oo qamiis soonka ugu soo aadana ay tahay soon uu kusoo aaday sibdi meelahaas, maalinta qamiistan waa iska soomaysaa qofka muslimada insha allahu tacaala. gabar iyo wiilba isku mid insha allah. walow gabadha oo xaaska la qabo inaysan soomi karin soon sunna ilaa iyo ninkeeda idin inay ka haysata mooye. marka insha allahu tacaala
sidaas waaye qofka soonkiisa ayuu iska wadanaya markaasi uu soomaya insha allahu tacaala. marka maalinta ramadaanka in soon laga hormariyo lama rabo insha allahu tacaala. qofka soomanna waxyaabo badan oo aadaab ah ayaa laga rabaa inuu la yimaado insha allahu tacaala. inuu waxyaabaha ilaahay ka xaaraantimeeyo dhan inuu ka taga ayaa loo baahan yahay. waxyaabaha sidoo kale laqwiga inuu ka tago. rasuulka calayhi salaam qofka muslimka ah wanaagiisa wuxuu ku jira waxyaabaha maalayacniga inuu ka tago. waxyaabaha dhaadhuuga iyo waxaan anaga aan leenahay aan waqtiga ku dilayno waxaa loo baahan yahay inaan iska dhaafno. haddaad caajisan tahay xataa inaad seexataa dhaanto oo ajira kugu socdo hadduu ilaah yira insha allahu tacaala, ama kitaab qur-aan aa akhriisato ama iska wardid insha allahu tacaala. ramadaanka marka xadiisul qudsi allah subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay kullu camal ibni aadam, camal walbo ibni aadamka asiga iska leh waa loo asiga macnaha loo xisaabinayaa ila siyaam soom maahane. soonka waxa waaye waa soonka ayaa laga soo reebay. xalqadeeni horen waan ku sheegnay insha allahu tacaala. fa inahu lii wa ana ajzi bihi, soomka anaa iska leh anigaan ku awaalguday ayuu yiri insha allahu tacaala. marka xadiiska wuu dheeryahay, wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha aadaabta soonka qofka saa'imka looga baahan yahay insha allahu tacaala. wasiyaamu soonka junnatun gaashaan weeye. soonka markaan ka hadlayno waa gaashaan. qofka hadduu sooman yahay waxyaabo badan kuma dhaqaaqi karo. hadeertan waad aragtaan idaacadaha laftigoodii heesaha iyo waxyaabaha sooma deeyaan. maxaa xanibay? soonka ayaa xanibay. qofka hadduu sooman yahay qof macay karo oo waxyaabo xun indhihiis kuma fiirsan karo ama dhegihiis wax kuma dhegeysan karo. waxaa xanibay waa soonka ayaa xanibay. sidoo kale qiyaamaha marka laga hadlaayona naarta ayuu ka hor istaagaya insha allahu tacaala. albaabka oo albaabada jannada ka mid a baaburiyaan la leeyahay ayaa laga wici doonaa insha allahu tacaala. kuwii oo soonkooda laga aqbalayn ilaaha naga dhig insha allahu tacaala. wasiyaamu junnatun waa gaashaan. faida kaana yowmu sowmuhu faida kaana hadduu ahaado yowmu sowmi axadukum, qofkiin hadduu sooman yahay ama soonkiisa maalintaas hadduu ahaado, falaa yarfath yousan hadal xumo la imaanin. hadal xumo inaad la timaado ayaa la diidan yahay. xan iyo waxyaabo oo adiga oon khuraafaada inaad la imaato iyo hadal xun ah inaad la timaado ayaa la diidan yahay. waxaa loo baahan yahay waxyaabo wanaag inaad la timaato. sidoo kale allah subxaanahu watacaala xadiisul qudsi wuxuu ku leeyahay walaa yaskhab yousan caynin. inuu caytan la yimaado qofka waa mamnuucay ka tahay. soonkiisa ayaa dhaawac gaara insha allahu tacaala. marka qofka haddii meel iska joogo aadana dulmi lagama waayo, asagoona wax caynin oosan hadal xumo la imaan, waxaa laga yaabaa in laiska maago, laiska dulmiyo. arintaasi hadday dhacdo fa in saaba axadun, qof hadduu caayaa lahay, qofka sooman ayaa la caynaya, qof kale ayuu caayay, ou qaatalahu ama la dagaalamo oo adiga feeri wax uu ku dhufto, falyaqul qofka sooman ha yiraahdo inii saa'imun, war aniga waan soomana ha yiraahdo. qofka hadduu sooman yahay waxaa loo baahan yahay inuu xarakaadka sida dagaalada iyo waxyaabaha caayda iyo hadal xumada inuu iska dhaafo gebi ahaan oo ka tago. laakiin dagaalada marka laga hadlayo dagaalka iska caadiga dadka muslimiinta u dhexeeyo mararka qaar afka iyo waxyaabaha laisdhaafsado wax la diidan yahay. laakiin midka jihaadka ah waa furan yahay. qofka soonkiisa waa u dayacayaa, waa furayaa, mar kale ayuu dib kasoo qalaynaya. waayo qofka jihaada waxaa loo baahan yahay inuu afurnaado oo xoog lahaado ayaa loo baahan yahay. marka insha allahu tacaala markaan sooman nahay inaanan marna aanan dhibaato aanan geysanin, marna aanan ku kicin waxyaabaha dalxumaa hadduu ilaah yirahdo insha allahu tacaala. marka barnaamijkan ramadaanka hadduu ilaah yiraahdo taxan ayuunu sii ahaan doonaa inta ramadaan oo ka dhammaanaya hadduu ilaah yirahdo insha allahu tacaala. sidoo kale waxyaabaha ka midka ah aadaabta qofka soonka ah waa laga rabo waxaa ka mid ah inuu afurka dedejiyo. waayo xilliga afurka markuu yimaado qofka inuu hobsado ayaa loo baahan yahay aadaanka, kadibna wixii markaas lagu afuri karo uu ku afuro ay ugu wanaagsan tahay, ugu ajri badan tahay timir inuu qofku ku afuro afkiisa uu ku bilaawdo. 1 xabo, 3 xabo, 5 xabo, 7 xabo tir isdheera inuu isticmaalo ayaa haboon insha allahu tacaala sida sunnada ay tahay. sidoo kale afurka in la dedejiyo xadiis ayaa kusoo arooray muslim iyo bukhaari intuba isku waafaqeen. rasuulka calayhi salatu wasalaam uu leeyahay laa yazaalu nnaasu bikhayrin, dadka khayr ka zuuli maayaan maa cajalu lfidra, intay dedejinayaan afurkuba intay dedejinayaan
خير كما زولايان أيور اللي رسولك عليه السلام سيدو كلا إن لصحور تيا كمدة آدابته أما وحيابها الاسكرة رمضان إن شاء الله تعالى دد كلها أنا مسحورا كرنو صوكع جلس بيا حتى يعبهدو إلى يرادو وصلنا إن شاء الله تعالى تصحروا فإن في السحور بركة أيور رسولك عليه السلام بركة يكسون إن شاء الله تعالى مركا waxaa naga dardaaran ah wixii soonkeena dhaawac gaarsiin kara inaan iska ilaalino sidoo kale aadaabta soonka aan ilaalino insha Allah taala intaan waa intuu Ilaahay waafajiyay subhanahu wa taala wixii aan qalday shaydaan nafsadeyda ka ahaadeen wixii aan saxayna Allah subhanahu wa taala ayaa waafajiyay wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh